caalamka waxa ku kala nool bulshooyin kala duwan. Waxa hubaal ah in bulsho walba ay leedahay dhaqan u gaar ah oo had iyo marba ay si hufan uga dhaqmaan una ixtiraamaan. Dhaqamada kala duwan ee caalamka ayaa kuwa qaar markii aad maqashid ama aad aragtid ka yaabinaya. Inagu Soomaali ahaan dhaqankeenu waa kuwa uga firfircoon caalamka, waxaana kaalin weyn ku leh diinta Islaamka ee ciziyeysan. Dhaqamada qaar marka ay la kulmaan dhaqamo kale ayaa waxa ka dhex burqada dhaqan kale oo cusub oo ku saleysan labada dhaqan ee kulmay. Waxayna sameeyaan horumar kala duwan sida dhanka guurka, isla ugaarsiga iyo wada dhaqanshahaba. balse waxa weli jira qabiilada qaar ee weli ku dhagan dhaqankooda qadiimiga ah. Haddaba barnaamijkeena maanta waxaan diiradda ku saari doonaa dhaqanka qabaa'ilada kala duwan ee ku kala nool caalamka. Haddii aan ku bilaawno qabaa'ilka Samabaja ayaa waxay ku nool yihiin agagaarka badda iyo weliba biyaha korkooda. Waxaana laga helaa qabaa'iladan wadamada Indonesia, Malaysia iyo Philippines. Qabiilooyinkani ayaa waxay la qabsadeen ku noolaanshaha badda dhexdeeda. Guryahooda ayay ka dhex dhisteen badda dhexdeeda. Inta badan noloshooda waxay ku tiirsan tahay kalluumaysiga ee badda dhexdeeda iyo ugaarsashada kale. Qabaa'ilkani ayaa arrimahooda xasaasiga ee kala duwan ayaa waxay ku dhex qabsadaan badda dhexdeeda, sida nasashada, dabaaldegga u dhaqankooda iyo arrimahooda kale ee kala duwan. Qabaa'iladani ayaa nolosha ka aaminsanayn sidaan inagu ka aaminsanahay, mana la socdaan horumarka uu caalamka maanta u tallaabsaday. qalab horumarsan ma haystaan ee ay noloshooda ku maarayaan, laakiin nolosha way ku faraxsan yihiin. laakiin maraan dheeraynayay dawladda isku dayday inay qabaa'ilkani biyaha la saaxiibay la soo dejiyo bariga si ay horumar mug leh u helaan oo ayna ka fogaadaan nolosha biyaha. balse dadkani ayaa gebi ahaanba diiday inay ku noolaadaan meel ka fog biyaha, waxayna ku soo barbaareen oo ayna u arkeen inay tahay dhaqan ay ka soo dhaxleen awoowayaashoodii hore. laakiin waxaa cajiib ah in mararka ay sunaamada dhacaan ayaa waxaa la ogaaday in qabaa'ilkani aysan wax saameyn ah ku yeelanaynin maadaama ay dabaalka si hufan u yaqaanaan. waxaa kaloo cajiib ah in dadkani ay biyaha hoostooda ku jiri karaan ku dhowaad daqiiqado dhan 5 iyagoo neefsanin. arrintani ayaa ka yaabisay culimada ama qubuuraha kala duwan ee caalamka.
qabaa'ilka Karowe ayaa sidoo kale ah qabaa'ilka uga yaabka badan ee ku nool caalamka. Karowe waxay ku nool yihiin dalka Guinea-Bissau waxayna ka kooban yihiin ku dhawaad 3500 oo qof. waxay ku nool yihiin Kenya aad u weyn oo ku taalo Guinea-Bissau. Keentani ay ku nool yihiin ayaa waxaa labada dhinac ka mara webiyaal waxayna weli ku degan yihiin dhaqankii awoowayaashoodii hore. qabaa'ilkani ayaa la arkay sanadkii 1970 waxayna cunaan dixriga, hilibka dadka iyo wax walba oo ay u arkaan inay cuni karaan. qabaa'ilkani ayaa la sheegay inay cunaan hilibka bini'aadamka marka uu geeriyoodo aysan aasin, waxayna ku nool yihiin geedaha korkooda iyagoo ka dhigto buushashkooda geedaha dheerdheer si ay uga fogaadaan dugaagta cadowgooda iyo weliba fatahaadada webiyaha halkaasi maro. qabaa'iladani Karowe ayaa waxay khatar uga jiraan inay sumoobaan maadaama ay wax waliba ay arkaan ay iska cunaan. waxa kale khatar uga jiraan inay bahalada keymaha ku badan ay qaniinaan taasoo daawo xitaa loo haynin. hase yeeshee qabaa'ilkani ayaa si weyn u aaminsan sixirka iyo dhammaan waxyaabaha islaamku ku tilmaamo shirkiga. noloshooda liitada ayay u arkaan inay tahay midda ugu quruxda badan ee caalamka ka jirto maanta. qabaa'ilkani ayaa markii qof marti u yimaado ku soo dhaweeya hilibka doofaarka ay u arkaan inay tahay hilibka lagu marti sooro martida qaaliga ah. doofaarku ayaa si weyn ay u jecel yihiin ayaa waxaa marar badan u sababa in colaado ka dhex abuuro qabaa'ilada iyo kuwa kale ee ay dariska yihiin. colaadii dhex martay qabaa'iladan iyo kuwa kale ayaa dariska yihiin ayaa marar badan colaadaasi kadib markii ay iska xadaan doofaarka oo astaan sharaf iyagu ah. qabaa'ilka Karowe ayaa la sheegay inay isticmaalaan doonyo ka samaysan alwaaxyo adag, sidoo kale waxay masarta ka samaysteen dhagxaanta iyagoo si walba u adeegsado. qabaa'ilka Asaro ayaa iyaduna ku nool mantiqada Indonesia. qabaa'iladani ayaa marka aad aragto dhaqankooda ka yaabinaya adigoo marba marka ka dambayso ogaanayso in barashada dhaqanka qabaa'ilkani uu waqti dheer u baahan yahay. qabaa'ilkani ayaa marka aad aragto waxa jirkooda marsan dhiiqada iyadoo marsashada dhiiqada jirkooda ay tahay dhaqan aad uga weyn. qabaa'iladani ayaa dhoobada si weyn u xafidaa una qadariya waxayna la sheegay in arrintaasi ay salka ku hayso kadib markii maalin maalmaha ka mid ah qabaa'ilkani ayaa waxa soo weeraray qabaa'il ay daris ahaayeen kadibna qabaa'ilkani Asaro ayaa jirkooda dhoobada mariyay. intaas kadib ciidankii weerarka soo qaaday ayaa meesha isla markiiba ka cararay iyagoo ku tilmaamay qabaa'ilka Asaro inay yihiin dad shar badan oo aan ahayn dad reer adduunyo ah. dhanka kale dhooqada ayaa astaan lagu garto waa qabaa'ilkan laakiin korka kale ayay marsadaan dhooqada balse waxay ka ilaaliyaan wajiga iyo indhaha iyagoo ka baqayo inay ku sumoobaan. qabaa'ilkani ayaa si weyn u ixtiraamaa dhoobada waxayna dhooqada marsadaan marka ay qabanayaan xafladaha lagu xusayo dhaqankooda iyo u dabaaldegga maalinta ay ciidankii soo weerareen ay carareen kadib markii ay jirkooda dhiiqada marsadeen. qabaa'ilkani ayaa mar waliba ku dhagan dhaqanka soo jireenka ay ka dhaxleen awoowayaashoodii hore.
qabaa'ilka Loyakis ayaa ku nool mandiqada Antakya oo ah meel la sheegay in la dego ay ku habbooneen maadaama ay si daran u qabow badan tahay. qabaa'ilkani ayaa halkaasi si weyn u dega iyagoo teendhooyin fudfudud ka dhistay, halkii teendhona ayaa waxaa ku nool ilaa 5 qof. qabiiladani ayaa waxay ku tiirsan yihiin dhaqashada ariga iyagoo fahamsan dariiqooyinka dhexmara deegaankani oo u daboolay barafka guud ahaantiisa. waxay isticmaalaan dhammaan waxyaabaha la isaga celiyo qabowga iyagoo xirto dhar waaweyn ee laga sameeyay maqaarka ariga. ariga ay dhaqdaan ayaa leh duuf badan oo qabowga isaga celiyo. qabaa'ilka Bogon ayaa quruxda u qadariya si ka duwan tan caalamka ka jirto maanta, waxayna leeyihiin dhaqmo iyaga gaar ah. waxaad aragtaa iyagoo ku socdo alwaaxyo joog sareeyo iyagoo ku xiraaya lugahooda, waxayna soo xirtaan alwaaxyadaasi mararka ay xafladooyin jiraan. qabaa'ilkan ayaa iska ilaaliya inay ku darsamaan qabaa'ilada ama dadka kale iyagoo ilaalshanaya caadadooda dhaqanka. qabaa'ilkani ma ku xirno wax koronto ah, waxna ma kala socdaan horumarka tiknoolajiyada ee ka jirto caalamka maanta. cunnada ay ku tiirsan yihiin qoladani ayaa ah qudaarta qaar ee xadidan. dadkani ma aaminsana Ilaahay, waxay caabudaan waxyaabaha sida dhagxaanta iyo waxyaabihii dhaqankooda ka soo jireenka ahaa, waxayna ku nool yihiin guryo dhaadheer ay buraha korkooda ka dhistaan. qabaa'ilkani ayaa aaminsan inay yihiin kuwa uga cizziga badan caalamka, iyagoo inta badan dhaqan kale u arko mid liid ah.